booliiska magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa bilaabay tijaabo cusub oo ku saabsan isticmaalka kaamaradaha ay booliisku jidhka ku xidhaan kuwaas oo ku shaqaynaya tiknoolajiyadda casriga ah ee aqoonsiga wajiyada iyadoo kaamaradan ay aqoonsan doonto wajiyada dambiilayaal lagu raad joogo. inta lagu jiro bisha December ee sanadkan ilaa 50 askari ayaa si tijaabo ah u xiran doona kaamaradahan kuwaas oo awood u leh inay si otomaatig ah u barbardhigaan muuqaalada ay duubaan ilaa 7,000 oo qof oo ku jira liis gaar ah oo dawladda Canada ku raad joogto. balse kaamaradahan hadda wax xog ah oo degdeg ah ma siin doonaan askariga xiran, laakiin xogta ay qabtaan waxa dib u eegi doona shaqaale si gaar ah loogu tababaray si loo hubiyo xogta ay gudbinayaan kaamaradahan inay sax tahay iyo in kale. natiijooyinka ka soo baxa tijaabada waxa dib u eegi doona guddiga booliiska Edmonton kuwaas oo iyaguna go'aamin doona in tiknoolajiyadan lagu sii wado tijaabooyin dheeraad ah sanadka 2026 iyo in sida lagu hawlgeliyo. waxaa xusid mudan in wadamo dhowr ah oo caalamka ku yaala ay isticmaalaan kaamaradaha aqoonsada wajiyada dambiilayaasha, balse isticmaalka tiknoolajiyadan ayaa aad looga horyimid waxaana la sheegay inay meel ka dhac ku yihiin asturnaanta iyo xuquuqaha muwaadiniinta. sanadkii 2003 ayay ahayd markii waaxda sharci dejinta ee baarlamaanka midowga Yurub ay cod aqlabiyad ah ku diideen in gabi ahaanba la isticmaalo kaamaradaha noocan oo kale ah.